yaad ayuu mahadsantahay ilahan haatana dhanka iyo ciyaaraha waxaana diyaar la ah Cawil Cabdi Cabdullaahi Cawil Abqayd aad baad mahadsantahay Bashaar Axmed Dool xidigu ciyaara kooxda kubadda cagta Sansuula ayaa doonaya inuu isaga tago kooxda kubadda cagta Sansuula xilli uu dalabaad ka helayo qaybo kamid ah kooxaha ugu tunka weyn qaaradda Yurub. xidiga Sansuula ciyaaraya lagu magacaabo Dynamic ayaa markaasi shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu xagaagan ka huleelo kooxda reer Talyaani sida la shaaciyay Lacazette della Sport. laacibka 4 sano jirka ayaa cadeeyay hadii uu arintaasi ay dhacdo inuu markaasi cagta saarayo horyaalka Ingiriiska gaar ahaan kooxda Liverpool oo si weyn xidigaas u doonaysa xilli ay jiraan warar xoogan oo aad ula xiriirinaya Inter Milan laacibka ayaa haatan arintaasi hawada ku laalay waxayna tani dhiirigelinaysaa Liverpool oo ciyaaryahankaasi baaxsi ugu jirta nadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa markan baaxsiga laacibkaasi soo bilowday sanadkii 2015 balse ma jiraan dalab rasmi ah oo ay ka geeyeen ciyaaryahankaasi haatan kooxdiisa ayaa la xusayaa in ay dalban doonto qiimo dhan 50 milyan oo euro Dynamic ayaa markaasi u fasaxan xagaagan inuu ku biiro kooxda uu doonayo ciyaaryahankaasi kooxaha kubadda cagta Roma iyo AC Milan oo markaasi isku garbinaya macallin Zari oo maamula kooxda kubadda cagta ee Chelsea tobaraha nadiga Chelsea Maurizio Zari ayaa markaasi rajo geliyay kooxaha AC Milan iyo Roma waxaana mar kale ku celiyay in uusan hubin in Chelsea uu hogaamin doono xilli ciyaareedka soo socda Zari ayaa nadiga Chelsea u yimid xagaagii 2018 xilligaas oo nadiga Napoli uu kaga soo wareegay waxaana xilli ciyaareedkaasi kooxda geeyay finaalka Europe League halka booska saddexaad ay kaga dhameysteen horyaalka Premier League wadanka England isagoo ka hadlaya mustaqbalkiisa macallin Maurizio Zari ayaa yiri Chelsea miyaan sii joogaya waxaan filayaa inaan hubin arintaasi kooxdu waxay ii sheegeen in kooxdu ay Champions League geeyo taasna waan sameeyay intii karankayga ahayd wana waday kooxda inaan la qabto wax badan laakiin horyaalka Premier League waa mid aad u adag markaad u fiirsato waxa halkan markaasi ka dhacaya kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo nadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa ku heshiiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Eden Hazard kaas oo si weyn looga hadlayay suuqa kala iibsiga halka uu ku dambeyn doono wiilka u dhashay wadanka Belgiumka ee Eden ilwaraadiyo saxaafadda Faransiiska ayaa qoraysa in daboolka laga qaaday goorta ay Real Madrid ku dhawaaqayso heshiiska kubad sameeyaha nadiga Chelsea Eden Hazard wargeys ka soo baxa dalka Spain ayaa qoraya in heshiiska Real Madrid ay ku helayaan laacibkaasi uu gaarayo 100 milyan oo euro isla markaasna nadiga Chelsea iyo Real Madrid ay arintaasi isla meel dhigeen wargeyskaas ayaa sheegaya in nadiga Real Madrid ay heshiiska laacibkan ay markaasi dhawaaqday kadib finaalka Europe League iyo nadiga Chelsea iyo Arsenal oo ku balansan finaalka koobkaasi ayaa dhacaya 29 May waxaana Eden Hazard uu dhawaan diiday inuu hesho cusub u saxiixo kooxdiisa Chelsea sidaas oo ay tahay ma jira ilaa haatan war rasmi ah oo ka soo baxay labada kooxood arrintan ayaa imaanaysa xilli nadiga Chelsea oo ganaax markaasi ka saaran yahay dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaana markaasi ay Chelsea qorsheynaysaa inay si haysato wiilkeeda oo dhashay wadanka Belgiumka ee Eden kaas oo laga yaabo ugu dambeyn inuu caga dhigto garoonka caasimadda wadanka Spain oo ay ku ciyaarto camaalaqada ama xoogweynta wadanka Spain ee Real Madrid oo si weyn looga doonayay tani markii booska uu baneeyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo ku biiray nadiga kubadda cagta Juventus marada duqda ah gudaanta ay ku soo gabagabeynaa xubintii ciyaaraha warkood kala socotay Jubaland TV aan dibida ku wacdiye Bashaar Axmed Dool ee qaybaha ka dhimanay warka Bashaar